madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta daahfuray xarunta ganacsi ee Bawaadi Mall Djibouti oo ku taala wadada Venice ee caasimadda Djibouti. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay weheliso marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd kolkii ay soo gaareen xarunta ganacsi ee Bawaadi Mall waxaa halkaasi si diiran heer sare ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Mohamed qaar kamid ah xubnaha xukuumadda iyo waliba gudoomiyaha sare shirkadda Nail bin Rashid Saif Al-Shami oo u dhashay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. waana tallaabo muujinaysa xiriirka maalgashi ee wanaagsan iyo walaaltinimo ee u dhaxeeya Djibouti iyo Imaaraadka Carabta. waxaana munaasabada soo dhaweynta goobjoog ka ah shaqaalaha kala duwan ee xaruntaasi ganacsi oo si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa gudaha Bawaadi Mall xaruntaasi ganacsi ku soo dhaweeyay waa mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadaasi Nail oo madaxweynaha uga mahad celiyay sida diiran ee ay ugu soo dhaweeyay jamhuuriyadda Djibouti. madaxweynaha ayaa waxa sidoo kale soo dhaweeyay dhammaan shaqaalaha iyagu ka howlgala xaruntaasi ganacsi ee Bawaadi Mall. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa hadaba hareer socday kolkii uu gudaha u galay xaruntaasi ganacsi mas'uulka shirkadda Nail. xarunta ganacsi ee Bawaadi Mall Djibouti waa xarun ganacsi oo qabsatay fulinta adeegyo badan oo ganacsi oo ay ku jiraan dukaano, maqaayado iyo goobo loogu talagalay fiirsashada aflaamta oo si wacan loo habeeyay oo qaadaya dadweyne aad u tiro badan. dhismaha xaruntani ayaa ku soo kordhinaya caasimadda Djibouti muuqaal wacan oo soo jiita dadka dalxiiska iyadoo markale kordhinaysa gees kale nidaamka magaaleynta caasimadda Djibouti iyo fudaydinta adeegyada ay dadweynuhu u baahan yihiin. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay weheliso marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa soo indheeyay qaybaha kala duwan ee xaruntaasi ganacsi ee Bawaadi Mall ay ka kooban tahay taasoo ah mid iyadoo ka jawaabaysa baahiyaha adeeg ee bulshada. waxaa kamid ah xaruntaasi ganacsi in adeegyada bangiyada laga heli karo oo qaarkood bangiyada dalka ay ka fureen giisheeyo si dadweynaha u adeeg yimaada ugu fududeeyaan helitaankaas lacagaha. xarunta ganacsi ee Bawaadi Mall Djibouti ayaa ka mid noqonaysa xarumaha ganacsi ee ku soo kordhay caasimadda Djibouti waxayna ku soo kordhinaysaa in ay soo jiidato dadka dalxiiska iyo waliba dadka shisheeye. xaruntani ganacsi ee Bawaadi Mall ayaa iyadu ka kooban dhowr qaybood oo aad u fara badan isla mar ahaantaana loo dhisay qaab caalami ah. waxaana xaruntani ganacsi ee Bawaadi Mall laga helayaa wax waliba oo dadweynuhu ay u baahan yihiin. waana xarun si heer sare loo qalabeeyay isla mar ahaantaana u dhisan ayna ku yaalaan dukaamo kala duwan iyo waliba maqaayado. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele intii uu ku sugnaa gudaha xaruntaasi ganacsi ayaa waxa uu soo booqday dhammaan qaybaha kala duwan ee xaruntaasi ay ka kooban tahay. sidoo kale marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa waxa ay inuu soo booqatay qaybaha kala duwan ee xaruntani Bawaadi Mall ay ka kooban tahay. waxa sidoo kale ay la kulantay qaar kamid ah shaqaalaha iyagu xarumaha ku leh xaruntaasi ganacsi ee Bawaadi Mall. marwada koobaad ee dalka ayaa waxa macnuun dheeri ah ka siiyay kolba xarumahaasi shaqaalaha iyagu ka howlgala. guud ahaan xaruntaasi ganacsi ee Bawaadi Mall ayaa iyadu ah mid si heer sare u dhisan isla mar ahaantaana u suura gelin doonta haddii ay noqoto muwaadiniinta reer Djibouti iyo waliba dadka dalxiislayaasha in si wanaagsan oo wacan ay uga soo adeegtaan xaruntaasi oo iyadu ah mid haddii toole wax waliba ay ka helayaan. waxaa haddaba booqashada madaxweynaha la socday amba ku weerinayba waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo xubnaha xukuumadda. waxaana madaxweynaha gudaha xaruntaasi lagu guddoonsiyay aadiyad. marwada koobaad ee dalka ayaa inuu sidoo kale soo booqatay dhammaan qaybaha kala duwan ee xaruntaasi Bawaadi Mall oo ay aad u soo dhaweysay qaabka ay u dhisan tahay. xaruntani ayaa iyadu ah mid ka kooban dhinacyo fara badan oo loogu talagalay yar iyo weynba in ay wax ka iibsadaan.
ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi lagu soo afmeeray waa harimo sharafeed loo diyaarshay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo waliba marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Xayd gudoomiyaha golaha maamulka shirkadda Nile waa in waraysi la yeelanay ayaa waxa ugu horeyn uu mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa sida diiran ay u soo dhaweeyeen Maxamed Cusmaan Bulxan ayaa noo soo turjumay hadaladiisa waraysi aan la yeelanay madaxa golaha maamul ee shirkadda Nile bin Rahmaal ee maalgashiga ayaa ugu horeyn u mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda sidoo kalena waxa uu mahad celiyay shacabka jamhuuriyadda Djibouti waxaana uu soo dhaweeyay martigelinta iyo soo dhaweynta uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle shirkaddan Nile bin Rahmaal ee maalgashiga shirkaddan ay rugtidu tahay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta mudane Nile bin Rashid Seif ayaa waxa uu sheegay in Djibouti ay tahay dal walaala oo ku sugan yahay wadankiisii labaad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf waa inuu waraysi la yeelanay ayaa waxa uu ka warramay geestiisa ahamiyadda ballaaran ee ku xusan furitaanka xaruntan ganacsi waxana yiri saad u ogsoontii maanta madaxweynihii ayaa dahfurinta moolkan u yimiday oo ka qayb galay daafurintaasina waxay tahay arrin aad aan u qiimeynayno way waxaad ogaataa Djibouti inay tahay dal maaragtay maalgelinta dadka shisheeyaha soo dhaweysa wixii loo fududeydis ama siyaasad maaragtay ay mashaariicdoodii ama ganacsigoogii ay ku kobcin lahaayeen hawl fududeydistaas oo dhan iyo siyaasad ahaan Djibouti way la garab joogtaa dadka maalka hale ee maaragtay doonaya inay Djibouti wax gashadaan inaan maaragtay albaabadeenna inay u furan yihiin ayaan muujinay maantana mugamacan iyo meeshan ee la furitaankayga aan u joogno tusaale u tahay siyaasadda aan wadano wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale oo isaguna waraysi la yeelanay ayaa ka warramay waxa ay soo korinayso xaruntani ganacsi ee Banwadi Mall waxaana hadaladiisa ka mid ah Djibouti baryahan dambe isbedelo badan baa ka hirgalay kana socda oo madaxweynuhu horseedayo isbedeladaas waxay yihiin shaqo abuur sidii loo gaari lahaa ee dadka reer Djibouti aan u gaarsiin lahayn khaasatan dhalinyarada xilligaas waxaan u baahanahay dadka maalgeliyayaasha ee dibadaha nooga imanaya sida ugu raaxo badan aan u soo dhaweyn karno ay Djibouti ay u maalgashani karaan ay u heli karaan maartay iyaguna muraadkooga annaguna wixii aan uga jeednay aan ka gaadhno hadduu Ilaahay raado waxay ka dhigan tahay shaqooyin dhalinyar iyo lase in wayeelaba aan u abuuri karno taani maanta maalgelintan maanta waxay tahay calaamadaha bay wada leedahay intaasoo dukaanba ka furan barkood way soo socdaan dhowr boqol oo shaqo ah weeyaan waxa meeshaasi oo qurhatay ka soo baxaysa micnahan ka rabnana waa arrimahaas weeyaan waxa waliba anaka si kale oo gaara noogu farxada anigana aan aad uga soo shaqeeyay mashruucan oo wixii ay maartay salkii ay u baahnaayeen madaxweynuhu bari 3 sanadood horteed amarka uu nagu siiyay sidii shirkaddan iyo leese maalgeliyaha maanta in Nile Sheikh Nile sidii aan u soo dhaweyn lahayn isaga iyo intii kale ee badan ee la halmaamata khaasatan xilliga ay ka socdaan dalalkan walaalaheena ee Carabta waliba si gaarana isku taga Imaaraadka Carabta maalgeliyaashooda xilliga ay noqoto iyo dabcan Sacuudiga iyo intii kale ee walaalaheen Carabta sidoo kale waxaan waraysi la yeelanay qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi furitaanka waxaan hadalnay fiican weyn la furay Banwadi Mall maanta madaxweynuhu alxamdulillah meel fiican buu furay meeshani oo ka kooban dukaano badan oo la furi doono oo kuwa kala haray jira waxa jira magaazaankii weynaashiyo halkani Kakbank weeyaan Kakbankna waa branch jadiid oo dhawaan la furay waa branch waqtiyaal badan shaqeynayo waqti maalin walba shaqeynayo jimcihii xitaa uu shaqeynaya 9 subaxii sida loo furo ilaa 10 wixii customerkeena oo dhan baan ka leenahay ahlan wa sahlan markaasi waxaan leenahay waa meel fiican moolku dukaano badan baa jira bulshada reer Djibouti ma sha Allah aad ugu faraxsan yihiin waxaan leenahay ma sha Allah shukran